Assalaamu calaykum asxaabta. Maanta waxaan idiin wadaa filim horror ah laguna magacaabo The Tank. Haddii aad horror jeceshahay subscribe noo saar. Anu guda galno filimka. Waxaa la ina tusayaa qoys ka kooban nin lagu magacaabo Ben iyo xaaskiisa lagu magacaabo Jules iyo gabadhiisa Rhea. Lama filaan ah waxa ay helayaan guri qadiimi ah kaas oo hooyada iyo aabaha Ben lahaayeen sanado ka hor. Kuna yaala baadiyaha magaalada. Qoyskiina aad bay u farxayaan waxa ayna go'aansanayaan inay u guuraan. Subaxii ku xigtay ayay u guurayaan balse ma ogeyn in guriga ku nool yihiin makhluuqyo aad u halis badan. Marka ay guriga imaadaan waxa ay bilaabayaan inay hagaajiyaan. Intaas kadib Jules ayaa damcaysa inay biyaha furto laakiin biyaha way go'an yihiin. Ben ayaa tagaya waxa uuna aadayaa taangiga hoose ee biyaha lagu furo. Waxa uuna galayaa taangiga markii uu furana waxa uu dareemayaa qaylo ka soo baxaysa taangiga. Waxa uuna dareemayaa in meeshan makhluuqyo kale ku nool yihiin. Degdeg ayuuna uga soo baxayaa meeshii. Intaas kadib markii ay gogashooda tagaan waxa ay bilaabayaan inay akhristaan buug ay guriga ka heleen. Waxayna ogaanayaan in Ben hooyadiis ay ku weyday guriga ninkeeda. Aad ayayna u cabsanayaan. Rhea ayaa waxa ay dareemaysaa in qolkeeda lagula jiro waxayna arkaysaa in roogi kor loo soo riixayo. Waa ayna soo cararaysaa waxayna u soo cararaysaa dhanka hooyadeed. Kadib Ben iyo Jules waxay u dhaqaaqayaan in guriga baaraan. Waxbana ma arkayaan. Ben ayaana u sheegay Jules inaysan guriga joogin oo ay niyad ay tahay. Kadib Ben waxa uu aadayaa taangiga hoose kadib markii biyihii madow noqdeen. Marka uu galana waxa uu arkayaa in darbiyada taangiga uu dhiig ku yaalo. Meeshuna meel laga cabsanayo u eg. Meeshii ayuu ka soo baxayaa. Intaas kadib waxaan arkaynaa haweeney meesha maraysay isla markaana ku soo leexatay guriga Ben. Waxa uuna weydiinayaa meesha ay u socotay iyadana waxa ay leedahay xeebtan ayaan iskaga dalxiisayay. Intaa kadib waxa uu leeyahay aan ku sii qaado laakiin waxa ay leedahay gaari ayaan wataa. Si lama filaan ah daqiiqada kadib Ben waxa uu maqlayaa qaylo iyo sawaxan aad u soo baxaya. Waa uuna soo baxayaa waxa uuna arkayaa haweeneydii oo makhluuqyadii cunayaan. Isagana waa uu soo cararayaa waxa uuna wacayaa booliska. Intaas kadib askarigii la soo diray ayaa damcaya inuu guriga soo galo balse makhluuqyadii ayaa cunaya. Benna waxa uu maqlayaa qayladii. Waa uuna soo baxayaa waxa uuna arkayaa askarigii oo la cunay. Kadib waxa uu soo cararayaa waxa uuna ku soo laabanayaa gurigii isagoo naxsan. Markana gurigii waxa uu isku bedelay mid naxdin leh oo sawaxan badan oo cabsi badan. Kadib makhluuqyadii ayaa ku soo laabanaya taangigii. Benna waa uu ku soo xirayaa. Habeenkii qoyskii ma seexan cabsi darteed. Intaas kadib Ben waxa uu go'aansanayaa inuu taangiga galo xayawaanada khatarta badanna soo dilo. Waxa uuna xaaskiisa u sheegayaa inaysan walwalin oo uu soo laaban doono. Kadib Ben waa uu isdiyaarinayaa waxa uuna qaadanayaa qalabkii uu kaga hortagi lahaa makhluuqyada. Markii uu galana waxa uu arkayaa inaysan xayawaanadu hal xaba ahayn oo ay tiro badan yihiin. Waa ayna soo weerarayaan isagana waa uu iska difaacayaa. Inkastoo aad looga badnaa aad ayuuna ula dagaalayaa ilaa uu mid ka mid ah bahalladii ka takhaluso. Nasiib darro intuu mid la dagaalaya ayaa mid kale biyaha uga imaanaya. Waxa uuna ka qaniinayaa lugta. Benna waa uu daciifayaa waxaan isugu imaanaya bahalladii oo dhan balse Ben isma dhiibayo. Intii awoodiisa ahaydna waa uu la dagaalamayaa. Waxa uuna soo baxayaa isagoo dhaawac ah. Xayawaanadiina waa ay soo baxayaan waxa ayna soo weerarayaan Jules iyo gabadheedii. Jules ayaa la dagaalamaysa waxa ayna soo jebinayaan albaabka. Julesna xoog ayuu albaabka u celinaysaa. Intii ay celinaysay makhluuqyada mid ka mid ah Rhea ayaa makhluuqyadii daaqada kala baxaya waxa uuna ku tuurayaa taangigii. Julesna waxay la dagaalaysaa bahalkii guriga ku jiray. Ugu dambeynna waa ay dilaysaa waa ayna soo cararaysaa waxa ayna soo qaadanaysaa qori dab ah iyo mindi. Waxa ayna soo galaysaa taangigii waxa ayna la dagaalamaysaa bahalladii mid ka mid ah bahalladii ayaa garabka ka qaniinaya balse Jules ma ay isdareensiin. Waxa ayna la dagaalamaysaa makhluuqyadii. Ugu dambeynna waa ay baabi'inaysaa dhammaantood. Waxa ayna raadinaysaa gabadheedii. Waxa ayna arkaysaa iyadoo meel taangiga ka mid ah joogta. Waa ayna la soo cararaysaa waxa ayna ka soo kaxaynaysaa gaarigii Ben. Waxayna soo qaadaysaa Ben oo dhimasho ku dhow. Intaas kadib way la cararaysaa waxayna u kaxaynaysaa hospitaalka. Asxaabta filimku halkaas ayuu ku dhamaanayaa adigoona weli muuqaalka laga saarin. Waxaan idin leeyahay mac salaama.